بسم الله الرحمن الرحيم. والله دمانتي وين سلامية وأنا علي عبد السمد. وحان كم إذا هي منطقة أرض خبرته جامعة راولبندي ميديكال كوليدج المواد راولبندي ولا ليال أرض قاسنا هاي وحا يقول عشيل يقول عي قولكي يا قاس وقرحي ممكن يبقى دانا يجي على قعمها لو هذا قعمود يوجيها منطقة نقورته مجاهد كم كجرا المجاهد الوجه ولا كم قلنا وحن كجرا استاخ جامعة ديده ولا ليال وحن سافته مقاس أوجوبيه أنا هالليه يا وحيتاي إن متقانا أن دريميه إن أن ماركتي دبكاس مركز ودع كبدع جلاب بهذي أنا من عن شخصية بهذي سفارتي ومتقانا تاسوق أنتي إن أنا لسه حرير سفيرتي الصومالية المقالة متقاعدة كباكستان إسلام ذات تلفون كي مركز الرئيسي والي ويقوتي وين هذا الشعب وحين يوتري وان غير دبكاغا وأنا كوغرانيا جاران كحينيا ريفن غرانيا marka aan reeban garanay waxay tiriyana kugu soo celinaya kay muddo laga joogaa hadda ilaa 5 maalin 6 maalin intaas oo dhan ma dhicin inay hal mar ay qabato si mataqaana si isku xigto consecutive ayay mataqaana taleefankayga u jaraysaa igu dhageysanaysaa aniguna baahidan u qabay waa baahi taagan oo mataqaana imaartay rabay aan u baahanahay in la iga caawiyo saas daraadeed safiiradda iyo mataqaana rag la shaqeeyo ayuu mid kamid ah waxaan ii muuqata inaysan ahayn dad mataqaana imatali karana ummadda Soomaaliyeed wax ka barata waddanka Pakistan aad u faraha badan walaalayaal xawashada maanta anigu soo gudbinaya maaha mid maanta bilaawatay ummad badan baa hore u qaylisay oo badanna way qaylin doonaan dhibkuna intaas waa ka weyn yahay saas daraadeed ummadda waxaan idin sheegayaa dhammaantiin waxaan halkan doonayaa inaan uga diro codsi madaxda dowladda Soomaaliyeed ay u horeeyaan ra'iisul wasaare khayre madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo ayagu ah cidda ay qusayso safiirada waxaan leeyahay walaalayaal haddaad doonaysaan inaan idin xaqiijiyo wicitaanka haddeertaan baan ku wacayaa hortiina yaan ku wacayaa waan arki kartaan si automatic ayaa loo jarayaa taleefanka idinka u jeeda oo arki kartaan saas daraadeed waxaan idin sheegayaa qofka noocaasa dulmiga jira iyo mataqaana ku tagrifalka awoodeed ma ahan wax macquul ah mana ahan mataqaana waxaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed lagu hogaamin karo dowladda nabad iyo nolol ayada ayaana bartay isla xisaabtanka ayada ayaana bartay mataqaana in accountability-ga iyo transparency-ga ayada ayaan mataqaanaa natiri hadla dhibkiina sheegta saas daraadeed dilo iyo rajaan ka qabno awgeed ayaa waxay keentay inaan anigu hadlo ummadda Soomaaliyeed dhibkuna intan waa ka fara badan yahay waana ka waxaysan yahay waana saas daraadeed waxaan leeyahay dad badan baa jira oo kor u ooyaya hoos u ooyaya waxa dhibabka mataqaanaa ka mid aan sheeganayno in maaragtay lacagoon laga qaatay anagoo imtixaan galnay oo qualification-koodii iyo howlaheedii leh in mataqaanaa lacagna laga qaatay in mataqaanaa isha maaragtay in la weydiiyo oo ardayda qaar loogu hanjabo oo ay ceelinaynaa waddan ka saarnaa haddiina lacagta bixinin idinna ka yeelin inaan loo sinayn safaaradda inaan shaqada loo sinayn inaan aragtida mataqaanaa xitaa mataqaanaa in charge studentiga aan la arki karin in laga yaabo adoo wax yar u baahan in safaaradda asagada noqoto 5 maalin 6 maalin saas daraadeed walaalayaal qabyaalad iyo qurunna ma ka marna saas daraadeed madaxda dowladda waxaan ka codsanayaa arrinta ayada ra'iisul wasaare khayre u horeeyo in laga dulqaado dulmigan iyo culayskan safaaraddu ay nagu hayso iyo awood sheegashada mataqaanaa ka muuqata safiiradda iyo mataqaanaa iyo shaqa la'aanta shaqa xumada saas daraadeed mudane ra'iisul wasaare madaxweynaha iyo wasiirka waxaan leeyahay waxaan u baahannahay gurmadkiina waxaan u baahannahay inaad mataqaanaa hawshaas wax naga qabataan waxaan u baahannahay safiiraddaas inaad naga bedeshaan aniga diyaar ayaan waxu ahay wax kastoo caddeeyo diiraan keeno inaan keeno arday mataqaanaa
la dhibaateeyey, kuwa lacag laga qaatay, kuwa hadda loo hanjabayo, kuwa leeyahay waan kasaraynaa waxbarashadiinii ayagoo jaamacadahoodii jooga, kuwa mataqaanaa intaasoo $1,000 laga qaatay. anigana u horeeya waxaan codsanayaa dowladda Soomaaliya anigaan caddeyntii baan keenayaa in marka u horeysa shaqaan ugu horeeya ardayga u horeeya aan noqdo oo maaragtay lacagtiisii iyo hantidiisa farada ka booftay loo soo celiyo. mudane ra'iisul wasaare dulmigaas sidaad u caawisay ardayda reer Suudaan yaan doonayaa anaga inaan noo caawiso. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal ii soo duceeya, ducadiina u baahanahay idin dhibkii ugu dhacay inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala iga dhigo dambi dhaaf. midda kaleeto inaad sheegaraysaan oo aad inta sheegaraysaan muuqaalkayga si u gaarto madaxda dowladda Soomaaliya. waan idin salaamayaa dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulligii waan idin salaamayaa, nabad iyo guul baan idin rajeynayaa.